عاقل أحمد محمد سنيري oo kamid ah cuqaasha gobolka Sool ayaa maanta shir sharaa'id uu ku qabtay magaalada Laascaanood waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah ay ugu horeeyaan mashruuca biyo-gelinta ee magaalada Laascaanood waxaana caaqilku sheegay inay ku fashilmeen xukuumadda Soomaaliland fulinta mashruuca biyaha ee gobolka Sool tariyahan ilaa intii Soomaaliland ay gobolkan gacanta ku haysay 2015 ilaa maanta waxa caalamka loo sheegay in la yiraahdo biyo baa loo soo la gelinayaa biyo laga qabtiraya haddana waxaan maqlay dhawaan baaldhawad wasiirka oo leh 6 milyan ba SDF ugu jirtay taa mustaki baanu ka noo waxaan u leenahay billion ayaa lagu lunsaday maamuladii kala dambeeyay Soomaaliland magacayaga biyo lagu soo saarayaa biyaha meel bay iska dhigtay bulshada gobolkan waxaan u leenahay dhulka oo baahan baa jiray hal lagu waraabiyo baanu leenahay waayo waxaan waa wax laga daalay waa wax laga quustay waa wax laga rajabeelay waxaan noo aragnaa mashruuc furan oo marka intii hore dhamaataba in kale lagu doonto sidoo kale caaqil Sanyare waxa uu ka hadlay lacagta 2% ee loogu talagalay horumarinta gobolada bariga Soomaaliland oo uu sheegay caaqilku in loo isticmaalo siyaabo kale aan ahayn wax qabad iyo horumar taki kanahay oo dhagaha iyaga ku batay lacag la yiri waa 2% ama boqolkiiba 2 oo waxa lagu horumarinayaa gobolada bariga Soomaaliland haddaanu nahay gobolka Sool lacagtaas anaga dhibaato inoo geysatay fara badan waxa loo isticmaalay space politic ilaa 12 sanana meel inta wax laga qabtay la yiri umada u dana wata lacagtii wixii la idinku qabtay ma hayno haldhawood waxaan maqlay xisbiga wadani oo ka hadlaya lacagta oo la guryaha masaajida lagu dhisay aan maqlay iyagoo leh taa anaga naba kusaysaa waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi lacagtaas mustaki baanu ka nahay haddii wixii hore tagay 12 sano aan wixii loo qorsheeyay lagu qabanayn oo wax umada ka dhaxeeya oo danta guud oo waxbarasho oo caafimaad oo biyo oo nabadgelyo oo muuqda oo dadweynaha hortooda waxa la waayay hortiisa aan loogu barxaayay aan la helayn waxaanu ugu baaqaynaa inuu naga joojiyo oo cidda anaga naga baahan uu siiyo caaqilku waxa uu sidoo kale baaq u diray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo ugu baaqay inuu heshiisiyo gudaha Soomaaliland inta aanay bilaamin wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland arrimo ay kamid yihiin waxa wada la bilaabayaa wada hadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa marka ceelal iyo heshiiso baa reer madcaba ma waxaan ma ku dayba ma waxaan macnaha ujeedada laga leeyahay waa xaqiiqo la iska indhatirayo wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya inta la raadinayo anigu waxa leeyahay dad heshiisa ba dad kale la hadla Soomaaliland heshiiso oo waxa wada yeelatayadu oo cid walba saamiga ay leedahay shantii boolood ee waqooyi Ingiriisku gumaysan jiray ha hesho afartii kalena waxa uu muuqan laadahay oo dhalanteed riyaa 720 sano khiyaali ah aad moodaa inay iska dhaga tirayaan beesha dhexe ugu dambeyn caaqil Axmed Maxamuud Sanyare waxa uu ugu dambeyn baaq u diray wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore kuwii u dhashay deegaankan dulman ee xuquuqdiisa ay maqan tahay khaasatan wasiirka horumarinta biyaha waxaan leeyahay oo aan kula talinayaa ehel baanu nahay 720 sano ayuu taagnaa Soomaaliland xil walba uu ka soo qabtay aan madaxweynaha ku xigeen ahayn wuu og yahay xaqiiqda inaanay beesha dhexe ogolayn in wax lala yeesho wax saami qaybsiyana ay beeshiisu hesho waxaan leeyahay adiga iyo kuwa ku jira golayaasha ha ku mashquulina hadalka Puntland waxa la wasiir warfaafin haduu jiro inuu ka hadlo wixii dibadda cid kale ay ka hadasho Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray TV-ga caalamiga ee SAB magaalada Laascaanood